waxaan rabnaa inaan u galno arrimaha Kenya. Kenya derbi bay waxay ka dhistay xadka la wada Soomaaliya. Qaxootigii Soomaaliyeed waxay tiraa ka baxaan. Badina qeyb maxay toolay iminka ayleeda aniga iskale. Wadan ku muransan xuduudaha sidee bay macquul u tahay in ciidamo ka joogaan in ciidamo joogaan su-aashaadii hore iyo dib yaan dib ugu noqonaya taasaan ka jawaabaysa saddexdii sano hadda la soo dhaafay waxay ahayd waxaas oo dhan inay cad yihiin waxay ahayd in dowladda Soomaaliya ay diyaarsato ciidan ay kaga kaaftoomi karto ciidamada Soomaaliya gudaha jooga dal aan ciidan lahayn dal aan amnigiisa sugi karin qarnimadiisu waxay ku jirtaa shaki marka haddii adigu aadan isu diyaarin inaad adduunka la tartanto laakiin mudane wadamo badan baa jiro aan gobollo badan gacanta ugu jirin oo haddana aan lagu soo xadgudbin taasi waxay kaga duwan tahay hoggaan meesha Soomaaliya runtii waxyaabaha hadda dhibka Soomaaliya ka jiray weligeed ama hadda ka jiri kara wuxuu yahay shacabka ma aha shacabku waa dad fiican Soomaalida ah waa dad runtii u hoggaansan haddii arkaan hoggaan wanaagsan raaci kara oo runtii la shaqayn kara marka mar walba waxaa loo baahan yahay hoggaanka markaas ka jira dalka inuu adeegayo maslaxadda dalka iyo dadka iyo diinta waana intay ku dhaarteen waxyaabaha markaa fiiriso hadda aad leedahay waxa khaldan iyo wareerka ka jira meesha waxaad leedahay marmar waaba dhaartaba maxaa yeelay waa la dhaartay dhaar baa la maray kitaab baa gacanta la saaray dee waxaan is leedahay waa laga tegey wixii lagu dhaartay waxaa loo batay dan gaara marka mar walbaba dowladda shisheeye khaladka ma saari kartid waxaad khaladka saari kartaa dowladda shisheeye markaad taadii aad diyaarsato hadda ayaan dhaweyd waxaan dhegeysanayay journaliste ayaan dhaweyd la weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha inuu ahaa umayna Kenya oo la weydiiyey su-aasha qaadka wuxuu yiri annaga meeshan waxaa noogu jiriya ganacsi dad baa ku nool waa qayb ka mid ah dhaqaalaheena kama joojinayno dhaqaalaheena iyo dadka aan maarad ku nool haddii jaadka uu dhib yahay dowladdeena ha istaajiso markaas hadda waxaa ag fadhiya prime ministerka ag fadhiya marka macnaheedu taasaa kaaga jawaabta su-aasheeda marka meesha waxa weeye dowladda aad doorato iyo dowladda dalka hogaaminaysa yaad saaraysaa haddii sharaf dhac ku yimaado qaranka haddii dib u dhac ku yimaado qaranka haddii ay la tartami weydo caalamka waxaa khaladka saaraysaa dowladdaada iyo madaxdaada ma saaraysid khaladka dowladaha shisheeye marka waxaad leedahay marka in Kenya ay sheegato badda Soomaaliya iyo inay derbi dhisto waxaa mas-uulka xukuumadda waqtiga jirta ama madaxda haddii dowladdu ay leedahay policy cad oo aan shaki gelinayn wax walba arrinta badda oo kale horaa waxaa loo siixay memorandum of understanding wax la yidhaahdo isfaham oo shaki la gelinayo baddii Kenya waxay ku doodaysaa marka madaxdiina ay nala seexatay in muran la geliyo baddii yaa yeelay markaas ma shacabkaa yeelay Soomaaliyeed maya waxaa yeelay dowladdii Soomaaliyeed oo shacabku wakiilka u ahaa dowladda weeyaan dowladdaas dowladdii Sheekh Shariif iyo Cumar Cabdirashiid iyo tii memorandumka la bilaabatay adigu waxaad maxay tole ka soo noqotay ra'iisul wasaare Kenya ma kala hadashay arrintaas iguma soo qaadin adigu ma ku soo qaadin aniga iguma soo qaadin maxaa yeelay markii memorandumkaas loo seexay laakiin mudane badda adiga ku dhameeyay waqtigaas aan ku dhameeyo markii memorandumka la seexay waxaa loo soo celiyey golihii shacabka baarlamaankii yaa laalay marka oo diiday marka hawshii badda meeshaas ku dhimatay marka anigu xilligeygii ishu maba ahaynba Kenya meelo ka mid ah xuduudda derbi ka dhisaysa
waxaa la hadal hayaa in gudaha Soomaaliya ay soo galeen oo darbigu halkaa uu soo gaaray mala socota arrinka arrintaasi runtii waa arrimihii aan kala hadlay Uhuru Kenyatta markii aan is aragnay sanadkii soo dhaafay. maxaa isla gaarteen? waxaan isla gaarnay oo aan press conference aan wada qabanay in waxa uu ka hadlay waxa laga hadlay ay tahay darbi in la dhiso oo afkiisa ka yiri darbi kaliya ma ah waxaan ka hadlayno waxaan doonaynaa darbiga inaan qaadno oo aan dadka isu furno ganacsiga iyo dadka isu gudbaya labada dhinacba macnaheedu waxay tahay ma aha hadda meel iska furan maaha waa in loo sameeyo meel dadku ay soo maraan custom ah oo post ah oo dadku ay soo maraan si loo ogaado qof walba waxa uu dhanka kala geerayo marka waxaan aaminsanahay waxaan isleeyahay inaan ka hor dhicin waxa ay iyagu ay sameynayaan halka wax laga dhisayo waa beled xaawo iyo Mandheera inta u dhaxayso halkaasna customer ku sii yaalay oo dadku ay marayeen maxaa loogu baahday darbigan waxaa laga yaabi karaa dee anigu mar rabo inaan ka hor dhaco mar rabo madaxweynuhu ballan buu qaaday ballantuu qaadayna waxay ahayd in xuduudka la furayo iyadoo taxadar uu jiro oo custom uu jiro aan aragno waxay ku dambayso